waxaa si dardar la u furmay ciyaaraha xagaaga ee Ohio International Spring Cup oo sanad walba lagu qabtay magaalada Columbus, Ohio. Furitaankan waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka kala yimid xarumaha dawladda gobolkan, ciyaartooy, dadweyne aad u fara badan. Ciyaaraha xagaaga ayaa ah kuwa dhalinyarada iyo dadweyne kala gedisan oo ka kala yimid gobollo kala duwan iyo waliba wadanka Canada ay ku kulmaan isla markaana u noqota waqti isdhexgal iyo waliba isku soo dhawaansho u abuura. 27 kooxood oo ka kala yimid gobolada dalkan Mareykanka iyo Canada ayaa ku hardami doona sanadkan 2019 iyadoo ilaa iyo maalinimada Axadana ay ciyaaruhu socon doonaan. Fuad Baqbaqani oo kamid ah maamulka ciyaarahan ayaa uga mahad celiyay ciyaartooyda dhalinyarada iyo waliba mas'uuliyiintii ka soo qayb galay ciyaarahan. Tournamentigan wuxuu socon doonaa 4 maalmood. Maanta waa Khamiis weeye, maalintii uu bilowday wuxuuna dhamaanayaa Axadda Sundayda hadii la yiraahdo 21ka. marka aad iyo aad baan ugu mahadinayaa Soomaalida oo ciyaartooyda ah iyo dadka isboortiga ku jira meel kasta oo ay joogaan. Maamulaha kooxda gargaar ee gobolka Minnesota Maxamed Maxamuud oo maanta kooxdiisu ciyaartii furitaanka uga adkaadeen kooxdii Nashville Tennessee ka socotay 10 iyo waliba 1 gool ayaa muujiyay ahmiyadda ciyaarahan u leeyihiin dhalinyarada Soomaaliyeed. muhiimadda horta tournamentigan loo qabto waxa waaye inay mataqaana community la isku keeno oo ciyaalka mataqaana fan qaataan meelaha mataqaana yani meel xun ka aadi lahaayeen ciyaalka sida game violence oo kale aad baan ugu faraxsanahay in la isku keeno community-ga gaar ahaan Soomaalida. Marylight Body oo ah xildhibaanad laga soo doorto xaafadda 19aad ee magaalada Columbus oo kamid ahayd mas'uuliyiintii ka hadlay furitaanka ayaa xustay inay ku faraxsan tahay inay aragto Soomaalida oo ka shaqeynaya in carruurtooda la mashquuliyo isla markaana la baro xirfado la socon doona noloshooda idil. And I absolutely am delighted that the Somali American community here is working hard to engage the kids. aad ayaan ugu faraxsanahay in jaaliyadda Soomaalida Mareykanka ee halkan ay aad uga shaqeeyaan inay carruurta la macaamilaan, mashquuliyaan, isla markaana baraan xirfadahaasi la socon doona noloshooda oo idil. And help them learn those skills that are going to stand them in good stead for their whole lives. Flikinger oo ah garyaqaan mar walba ka qayb qaata dhiirigelinta Soomaalida Columbus kana qayb gala xafladaha iyo barnaamijyada Soomaalidan ayaa dhankiisa rajo wanaagsan ka muujiyay in si socoshada ciyaarahan ay dhalin karto in la helo dhalinyaro heer caalami ah oo ciyaara kooxaha caalamiga ah. We have been proud that we've been able to help the waxaan ku faraxsanahay in 20kii sano ee la soo dhaafay aan caawinayay jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan bartamaha Ohio. Gaar ahaan waxaan ku faraxsanahay inaan casuumaha ciyaartooyda oo dhan oo ka kala imanaya gobolada Mareykanka. Waa isreeb weyn oo xagaaga la qabto. Mar ayaa la arki doonaa ciyaartooy u gudubta inay ku shaqeystaan xirfadooda ciyaareed. qof walba waa jooga waxaan filayaa in ciyaaruhu dhawaan bilowdaan. We're really excited about having everybody here. We can hardly wait to get these games started. ciyaarahan oo sii socon doona tan iyo maalinimada Axadda ayaa koox walba waxay u suxul duubaysaa sidii ay u hanan lahayd koobkan isla markaana gurigeeda u geyn lahayd koobka 2019 inta badan dhalinyarada ka soo qayb gashay ciyaarahan ayaa waxa ay team walba ama koox walba iskula dardaarmayaan hanashada koobkan. Deeqsona SNTV Columbus, Ohio.